السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى. يا مهدلي بفضل ومنه وإحسانه الله أقول أشيسك هل لنا أول آخر بن آدم نقد يسان كل قرنه محا سحن محا غلدن محا أسود جوكت محاكم مغني وكما أديك هاي برقي الله هل ليس شلي الله هل ليس دتك ومحيدي دين محي دونيان محل يسكو هايستا حقين وحانك هل ليو لقاها قم أفري كرتا ما هيستا دقال لاب udduleela runta ma jeceshay mise beenta ku raaxaysataa haddii wax lagu sheego ma fahamtaa haddii walba maskaxaadu shaqeey weysi waxa aan la hadlaayo dadka wax garanaya maaha waa kuwa wax garanaya ay ka dhinteen kuwa aan waxba garanayn ay u shaqeeyaan kuwa dulleysanayeen ay u taliyaan waxaan rabaa inaan ku iraahdo simple example oo aad fahmi kartaan ku sheegaya unitary system dowlad madax ka noola oo dadka oo dhan u sheegta in dalka iyo wax kastoo dalka ka jira ay dowladdu leedahay waa soo tijaabinay waxaa ka badbaaday masaajid iyo dugsi quraan dalka Soomaaliya markuu burburay waxaa nabad galay masaajid iyo dugsi quraan ceel biyood ma nabad gelin isbitaalna ma nabad gelin hotel ma nabad gelin iskoolna ma nabad gelin jaamacad ma nabad gelin tiyaatar ma nabad gelin meel dalxiis ma nabad gelin deked ma nabad gelin aeroboor ma nabad gelin maxaa kilifay markii hore wadooyinku ma nabad gelin taangiyadu ma nabad gelin dayuuraduhu ma nabad gelin wax kastoo jiray ma nabad gelin askari ma nabad gelin jenaraal qiimo laha ma nabad gelin nin geesiyo macno laha ma nabad gelin gabar soo halgantay ma nabad gelin maxaa yeelay waxoo dhan waxaa loo qaatay dowladdu inay leedahay maxaa badbaaday dugsi quraan oo danguud loo yaqaanay oo baadiye iyo beledba dadka camimay iyo masaajid lagu tukado labadaasaa la dhaafay inta kale waa la baaba'shay maxaan ula jeedaa marka maantay suudaan waxay ahayd unitary system dowlad madax ka noola waa wada duntay zam waa dalka afrika ugu weyn suudaan waa wada dameen Ethiopia muddo 5 sano dagaal ka socda marna Tigray ku koobnaa marna Amharo ku koobnaa tobanaanka kale maamul goboleed oo federaalka waa nabad ciirta jugle barwaaqay joogan horumaray sameynayaan kan inta ka soo qaxay intuu aadaya dalka dhan ma wada qixin ma laga dareemayo caalamka waa nin cidiyo xanuuntay ama far xanuuntay oo kale shantii farood kale ku shaqaysanaya halka far la duubaya kaliya laakiin dowlad madax ka noola hal far ma bukoonaysa shanta farood buu bukoonayaan inta ma fahamti anu lama hadlay in gumeed laakiin waxa la hadlaa bini aadan aqli leh oo dalkan aan xasidnimo hadduu soo maamul goboleed lahayn aan qalbiga timo ku lahayn oo maamul goboleed maadaama uu waayay xasid ah oo doonaya aqli la soo tijaabiyay natiijadiisu burbur tahay waxaan rabaa marka inaan ku dhaho maantay Soomaaliya inta badan duurka shabaab haysta Somaliland horumaray sameynaysaa Puntland maanta buuraha galgala iyo caalwaa ayay kala baxaysaa qawaarij Mareykanka kaalmeynaya ciidankoodii isku duudeen waa la maal gelinayaa hub iyo saanadba waa helayaan dagaal ay ku hayaan qawaarij Ahmed Madoobe meeshii uu joogay xasana kula lagdamaya oo raas kaambooni ciidan geynaya asna meeshii soo xarbinaya hawshiisa wata xaalkiisa waa boosto laakiin xasan hadii taladiisa ay tahay wisla burburi lahayd Jubbaland oo dhan naga joog waxa loo leeyahay waxay tahay in maamul goboleed uu jiro dictatorku waa cayilaya waana kibraya buuraha uu jabsanaya markii aysan jirin sidoo kale tartan ayaa jira marka maamul goboleed iyo federaal dalku yahay Puntland wada dhisatay reer galmudug ha dhisteen aeroboor laga dhisay baydhabo galmudug ha dhisteen aeroboor laga dhisay galmudug hirshabeelle ha dhisteen hirshabeelle aeroboor laga dhisay koonfur galbeed ha dhisteen Jubbaland ciidan daraawiisha samaysatay hirshabeelle ha samaysato waa la tartamaya aeroboorka meeshaas ma aragtay ha wadada meeshaas ma aragtay ha
waxbaa socda jaaliyadaha tartamaya Soomaaliya 64 sano dawlad ahayd markii ugu horeysay ayaa qabiil inta isku tageen ayay waxay dhaheen aan wada dhisano wada gobliiraha la dhisay intuu soo qorqor meeshaas tagin reer Gurceel waxay bilaabeen inay wada dhistaan 6 kiiloomitir ay ko maraya qorqor xildoonaha tagay ana dhameystiraha wili 5 sano kadib waa dhameystira wili lacag iska goraa kaliya marna Turkiga u taga hal ay masaajeeyo leeyahay halkiis waa baranbar hadduu soo qorqor tagi lahayn reer Gurceel waxay go'aansadeen inay laamiga dhistaan 6 kiiloomitir oo jaaya oo lagu rogayo oo laga shaqeynayo oo dadku sameysanayaan oo isku tashiya oo tartiib ku socota oo baabuurka meesha mar $5 laga qaado ama $2 oo hawshu aboosto tahay qorqortigi zam wadami dadku gacantooda laga bixiyo oo la sheego dawladnimada in qof ay tahay ishaas ay leedahay wadadii Gurceel ka socotay oo istaagtay hadda maxaa socda waxaa socda in mar labaad lagu celiyo wixii Soomaaliya ku burburtay ay mar labaad ku burburi doonto oo maxay tahay dad yahow ana ugaaskiina Xasan Sheekh Ali ila habargeera daatiin masalan soo qaadana aniga nabadoonkiina dhalinyaradiina wax soo xusha aniga ah wax garadkiina aniga ah xildhibaanadiina ana idin soo xulaya ma tashakartiin waxba ma garatiin qofka idin fiican ana idin aqaana maxay yeelay qof fiican ma jiro ilaa waa inuu xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud ka tirsan yahay qof fiican oo habargeera ma jiro ilaa waa inuu xisbiga ka tirsan yahay waa adoonnimo la iibinayo oo lagu laqsiinayo taasoo keenaysa wax kasta faraha kala bax dawladda shaqada ku haysa dantaada dawladda ku haysa qofka ku fiican dawladda ku taqaan dawladuna waa nin ceel qaba oo abgaala oo xisbile oo challenge adigu kula jira oo cid kala dan kala hayn oo Itoobiya dantiisa ku raacaya oo Kenya dantiisa ku raacaya oo wax wadanidu ilaalina aan la arkin oo dhul iyo balad ibadiib iibinay sida awgeed walaalow dawladnimada hadda maqashid waa shirkad koronto iyo laamiyo la dhisto guryo la dhista iyo caafimaad jaamacado waxaas oo dhan dadka iskale hadda madaali Muqdisho yimid Masar oo ka yimid jaamacadaha dadka ganacsanaya iyo waxa Muqdisho ka jira oo ku mashquulsan yahay dadka habargeeda waa u sheegay in badan waxaan ku yiri wardudunta aboorka uu dhiso hadduu sadeer u sameyn bahalla gala iskama noolaa kartaan haddaad ganacsi kaliya samayseen siyaasad la'aan ma noolaa kartaan qorshe la'aan cid noolaa karta bale waa lagu mubayaa sida awgeed waxaan rabaa inaan ku dhaho walaal gacantaada yaan laga bixinin dawladnimada oo gacantaada yaan laga bixinin taladaada mustaqbalka oo gacantaada yaan laga bixinin wax kastoo adiga ku roon oo haddii Ilaahay ku roon yahay dad iyo deegaanba horumar ku sameynaya oo gacantaada yaan laga bixinin waxa asaaga ay ku horumareen Soomaaliland maanta horumar ay sameynaysaa shilinkoodu waa ka qaalisan yahay Puntland saakay garowa wadooyin isgoysiya la marsiinaya adiga waxa lagu sheegay ogolaaw in maamul tartankii Soomaaliya ee la rabay madax kanoolka in la iska dhaafo oo inta Muqdisho leedahay dhuusamareeb yeelato oo inta dhuusamareeb leedahay gaalkacyo yeelato oo inta gaalkacyo leedahay garowa yeelato waxa lagu leeyahay magaalada Muqdisho ugu soo aroor sida awgeed caasimada Soomaaliya waa in laga dhigaa caasimad wareegta oo marba meel la geeyo dawladda Soomaaliyeed waa inay noqotaa madaxtooyadooda mid wareegta airportka internationalka waa inuu noqdaa mid meel kasta laga dhiso oo marba sanadba meel u wareega dalka Soomaaliyeed waa inuu noqdaa wax heshiis lagu yahay oo qof gaar ah uu sabadal karin dadku waa inay doortaan qofka ay doonayaan hal mid aan rabaa Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madoobe yaa dictator kun mar Xasan Sheekh Maxamuud dictator dadka Soomaaliya degan 16 milyan ka soo qaad qayb kamid ah Muqdisho deganta xasanimo u magacaawd Axmed leeyahay Madaali oo gabdhaha u leeyahay waxa uu qabta lama arka dhiiqad xataa ma qaadi karo masaakiinta guriga kala baxa war Axmed Madoobe dad guriga kala baxaya miyaad aragteen
daduu dejiyo ka keeno ogaadeen Itoobiya Kenya ka keena Soomaalida kale ba aanu kama hadlaye Ahmed Madoobe ninka ogaadeen ko wax dilaa waa dilaa madaalo nin abgaalo wax dilaa ma aragteen madaalo soo ninkii ilaa ina baarqab jaalanjiyay ku jirta maaha wiilashii abgaal habargeedir waxaa la geliyay laha soo kuwa qoryaha wato hadda jooga maaha meeshii la dhigay warsheeg waxa qabiilna xor ka dhigay qabiilna in la garaaco adoon ay noqdaan ka dhigay waa ragaan hadii ilaahay goolay saaxiibadayo xasan noo keenay odawa ay maasalaad iyo fiqi saddexdanimo aan iqatashay waay saddexdanimo aan aaminoon islaha kuwaas haday wax noqdaan alla ilaahay gabadhiina guriyaanaysa min dhalin damba ma aamino min dhalin damba ma aamino barkeen nimanka si dhiib liyo umaan aqoon hambal yaa liidaa hambalyo meydka iyo waxay hambaliyeen baalkii waxaan rabaa marka walaal mid ana ku dhaho faa'iidada federaalka Itoobiya ka muuqata Tigray oo dhowr milyan oo qof ku dhimatay hadii dalka United System ahaalaha Itoobiya waa burbur lahayd amxaarada dagaal ka socda inta kale waa nabad horumar ay sameynayaan dowladda Itoobiya soo ibsanaysa waxay waa kala socdaan maxaa yeelay federaal way hadii gurigan oo gubto gurigan badbaadaya shan suuq hadii iskaga furan tahay hadii hal suuq gubto suuqyada kale laga adeegana laakiin United System markay noqoto raas Kamboni raas Caseera hal mar isku daadanaysa labzam isla damisa sida awgeed dadka Soomaaliyeed waa in ay maamul goboleedyada maal gashtaan dadka Soomaaliyeed waa inay iska daayaan xoolihii iyo dhaqaalihii iyo aqligii iyo talentigii iyo suugaantii dadka Soomaaliyeed in beelgaara ay sheegato oo u qaatay inay aydu leedahay saakataas way iska diideen walaalaha isaaq daaradna way iska diideen habargeedir waa inay iska diidaa inay adoon u noqdaan nin u ceel qaba oo dagaalka afar biloodka ku jiray waxa Sheekh Maxamuud sida awgeed waxaan rabaa meeshana la isku dilayaa warsheeg agteeda waxaan naloo sheegayaa in raas Kamboni yaa lagu cabsiinaa raas Kamboni ciidan ka soo baxay Kismaayo ma kare 300 kilomitir waaye yaa lagu cabsiinayaa hadii ilaahay ku roon yahay in askari oo dhaxgala baarlamaanka waa qalad askari in maanta Faleenbano la kugu xiro la xaysiyo in laga dhigo dadka wax kala sareeya federaalku wuxuu keenaa sinaan maxaad leedahay mashaqatag baa tahay sidee qof iyo cod maareeye iyo gobsan iyo guuleed sidee qof iyo cod ugu helayaan ugu soo baxayaan fiiri wasku dul noolaasho waa in la yiraahdo walaalayaal Somaliland atiin Somaliland hadii aad doonaysaan in aad Soomaali ahaan isaga noolaataan mushaarkeena qaata laakiin cod ma lihidin xildhibaanada Falastiiniga Israa'iil lacag mushaar ka qaata cod ma leh waxa la sharafeed go'aan ma lahan sida awgeed go'aanka ugu daranna waa leedahay dantaaduna waa calooshaada maamulkaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaguna waa ku madax banaayeen dadkaaguna waa is dooranayaan wiilka yarka ah cod xoro wax ku dooranaya anna waxaad ilaahay xasan Sheekh Maxamuud Muqdisho ka xukumo dadkaaga iyo deegaankaaga cid fahamto oo dadkayga oo garatana waa la ahay waxa uu hadaan ceel shubay cir ay ugu taal curadkayguna caala u yahay ceel ana qaba hadaan ceel shubay cir ay ugu taal curadkayguna caala u yahay ceel ana qaba dadkaygu caala maaha laakiin siyaasadda ka dhacsan yihiin siyaasadda qofku inuu ka dhacana waa u dhamaatay 100% u dhamaatay waxa meesha bini'aadamka ay wax ka fahmaan meesha ugu sareysa siyaasadda way maxaa ka iman kara talabada hada qaada maxaa ka iman kara oo doros inuu leeyahay waxa soo socda inuu garan karo waxa la maagan yahay siyaasadda waxa ka shaqeeya predictional philosophy waa kuma philosophy waa nabadoonka caaqilka indhar garadka waa ninka sababta u ahaa adiga iyo hooyadaaba kama intaan shaqeyne ina hubiya degan tahay oo cadaada degan tahay oo galeesoor degan tahay oo dhusumareeb degan tahay oo gurceel degan tahay oo ilaa shilaaba degan tahay oo ilaa xardheere degan tahay raga kaaga shaqeeyay philosophy
jaamacad maysa dhigan calal kuusiyada cagabururada maaha waqtigay geliyeen ilaa ceelbuur inaad deganta agteeda raga ka shaqeeyey wiila odayaalaha usoo dhintay kuwaa ka fikiray aan buugaag qorin laakiin gartay in dadkooda dhul iyo deegaan ay uga tagaan adoo maxaa ka tegaysaa habar geertii la dhihi jiray ilaahu kismaayo aan uga nabadgalo ayaa saaka waxay maraysaa dhuusamareeb iyo gurceel kuwa jooga anigaa nabadoon u ah xasan sheekh maxamuuda anaana soo xulaya xildhibaan ka soo bixi doona wiil caadi aad tihiin gabar iyo wiil wax ka hadlaa male gabar iyo wiil wax ka hadlaa male ummaddu waa nasaqantaa laakiin way soo noolaataa waxaan rajeynaya inay soo noolaato waxaan rabaa inaan ku dhaho federaal 5 sano Ethiopia dagaal ka socday Tigray iyo Amhara uu sameeyay Anfar Soomaali Oromo laba boqol oo kala bedelan tobanaan maamul goboleed nabad ay ku joogaan aanay daaqayaan Suudaan afka dhigatay waa burburtay Soomaaliya siyaad barre markuu joogay waa daadatay waa hoobatay waa kala tagtay saaki haddii xasan sheekh maxamuud uu kor u kaadiyo Puntland shidanaaba shidan Jubbaland shidanaaba shidan Galmudug shidanaaba shidan meel kasta Somaliland kaba daran kelinku ma oga maxaa yeelay waa federaalku waa nabadgelyo federaalku waa sinaan federaalku waa dictator diid federaalku waa horumar federaalka waxaa diidan kuwa yar ama Somaliland ka yimid oo maamulkoodu gaar u yahay kuwa yar oo shaqo tagaho ka yimid meelo kale oo calooshooda u shaqaysta kuwa aan dhul iyo deegaan balahayn oo baarasayda oo ciil qaba kuwa Ethiopia ka yimid iyo kuwa doonaya waxaysan lahayn federaalku waxaaga yeelo qof kalena wixiisa ha yeesho waay federaalku wuxuu ogol yahay doorasho qof iyo coda laakiin wuxuu ogol yahay dadka deegaanka in dadka waxaas u sameynaya ay ayagu leeyihiin federaalku waxa asal u ah in magaalada Muqdisho oo dawladda doonaysa qof iyo cod inay qof iyo cod ka qabato madaalad iisoo xule Axmed Madoobana waa diidaysaa oo u dhaawacmay oo u dhintay oo u dhididay oo haddii ilaahay ku reey dhacaan iyo dhiigba ku bixiyay mid dameera oo madaalo la yiraahdo oo axmaqa oo asagii naga abgaar isla niikiyaan oo habalgeer kaliya ku mamana waa soo xulanaysaa adiga xasan sheekh maxamuud waxaan iyo taabasho daarood iyo ogaadeen bacay ku tahay in 4 milyan oo qof oo Muqdisho joogta oo dadka degan Jubbaland ka badan xasan sheekh maxamuud nin qaraabadiisa oo naagtiisa la dhashay u magacaawdo adinkana oo idin yiraahdo Axmed Madoobe 75 oday ma doora karaan kaligiisa soo saartay 75 xildhibaan oo Jubbaland oo odayaal kala soo doorteen oo ilaa 10 kun oo qof oo isku xigta oo ay soo kala doorteen Axmed Madoobe ma soo saara karaan anigu xasan sheekh maxamuud kaligeeyana waxaan adoonsan karaa 4 milyan oo qof oo madaalan keesana caybay ku tahay ilaahay baan ku dhaartay Axmed Madoobe iyo daaroodba iyo ogaadaan caybay ku tahay caybay ku tahay in qof walba wuxuu raba sameeyo adoon ayna u ekaanayaan nimanka daarood iyo ogaadaanba Xamza waxaan rabaa inaan dhaho Xamzow kaliga calooshaada iyo surwaalkaaga dheer waxa ka muhiimsan dadka tirada badan oo Jubbaland ku nool inay noolaadaan sharaf iyo karaamano ku noolaadaan waxaan ku soo gabagabeynayaa federaalku waa caano iyo nabad iyo barwaaqo aan aamino federaalku waa tartan federaalku waa cid walboy waxa qaba kartid qabo ninkii wada dhisi kara kii iskool dhisi kara fiiri galmudug مثلا ku siinaa markuu siyaad bar dalkan ka tagay galmudug iskoolaadka ku yaalay 15 ma dhameyn ama 20 maanta galmudug iskoolaadka ku yaala kun iskool waa ka badan yahay balad ibaadiye kun jaaliyadii dhisanaysa degmadii dhisaysa hay'adaha dhisaya siyaad bar markuu ka tagay galmudug dadka reer gobolada dhexe waxa loo yaqaanay dhagax iyo oonka dhulka dhagax iyo oonka maantana cambe iyo liin iyo timira ka baxda maxaa kalifay ceelashii ku yaalay dawladii siyaad bar markay tagaysay galmudug ma dhameyn ceelashaas u dhan 20 ceel maantana 5 kun oo ceel ku taal galmudug war walaalayaalow adduunka horumar oo dhan waa federaal
ولا ليالو علن كان وانت ميل لا استاغي شويل اي كور او قاداي او ميل اي سورتي يا علن كان حسينا waxa qiimo u yeelay ee ummadda hore markeeda la taaba karaan qiimo u yeelin khiyaaliga iyo beenta calan la qaaday calankan ilaahay baan ku dhaartay 291 ilaa 2006 calanka bargeera loo yaqaan abgaalan qaaday jirin cid kale aan qaaday jirin calanka bargeera loo yaqaan saakay ku leeyihiin islaam abgaal soo qorayaan Soomaalinimo macaana na Soomaalinimo macaani mudulnimo macaan annaka nabasiri kartid been leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa jamaal oo kale calankan marada waxa ka qiimo badan in la ilaaliyo qalbiga ummadda Soomaaliyeed dalkani waa federal Puntland subaxii siyaad bar dalka ka tagay Boosaaso waxay ahayd magaalo yar oo dhibica maanta Boosaaso u maleemay Muqdisho iyo Hargeysa maahane magaalo kale oo tartami karta male maanta magaalada Hobyo horumar inay sameysay u diyaarsan tahay haddii dalka federaalka loo sii daayana 5 sano kadib Hobyo waxay noqon doontaa magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka lagu tartamo waxaan rabaa federaalku markuu tagay dhuusa mareeb horumar ay sameysay cadaado sanadihii ay joogeen galmudug horumar ay sameysay hadda la is doorto cadaado oo gudoomiyaha la doorto horumar ay sameysay war xukunka hoos in loo daadajiyaan ku duceysanayay in xukunka dib loo celiyo ee 18 wiil ee xasan mushaar siisto inaan u celino dadkana gacantooda xukunka laga bixiyo waxay keenaysaa dadku in dawladda inay salahayn ay u qaataan kadibna ay burburiyaan la xijeclada dawladda dadka ha loo celiyo dadkana hal la baro dawladda inay leeyihiin dadka dooranayna ay ku soo doorteen wiilashan caloosha kuusan ee xasan sheekh maxamuud la jeegay habar gidir ee hambaliyada dhahana nooma tali doonaan dadka annaka soo xula doona walaalayaal haddaad fahmi lahaydeen codkiina iyo quality-giina la isku geeyo karaamada iyo sharafta ay leedahay ilaahay baa ku dhaartay warkayga waa qaadan lahayd dalkan waa federal wuxuu ku burburay unitary system Sudan oo hal sano dagaal ka socdo afkay ciida dhigatay Ethiopia oo 5 sano dagaal ka socdana far marna Tigray xanuunsada marna Amharo Soomaaliya oo waa hore kala jajabtayna Puntland saaka dagaal ay ku jirtaa oo Amerikaana kaalmeynaya oo buurahaasay dagaal uga jirtaa galgala iyo wax la yiraahdo maqaan Jubbaland xasan sheekh maxamuud meel cilla halkan inuu ku caraafar raba waana iska dhicinayaan galmudug shadana bashadan waxa ma oga madaxna male majana male laakiin dadku waa kala socdaan ceelashooda ay qodanayaan haddii ay noqoto hal qof inuu ka taliyo dalkaanu hal mar burburaya sida awgeed saan u kala dambayno suuq hadduu gubto suuq kale u badbaado dalkan federaalka loo daayo dalkan federaalka u roon federaalka challenge federaalka tartan le talentiga dadka sportiska dadka wax soo saarka dadka beeraha dadka wax kasta oo la sameeynayo tartan lagu jiraa laakiin markii ay noqoto unitary system maxamed salaaman tubaa dadku cod fiican xalima aadana dadku cod fiican halnima isku qoray waa gartay gobolkaas ugu fiican gobolada gobolkaas ugu weyn halnima qoray madaxweynaha sharaf si hadiyad ku sii maanta waxay naga iibinayaan odawaagi dhibishtaha ayaas u geesi waayo geesi dawladnimada iibinaysa geesinimada tafsiir u baahan tafsiir waa agoon yara tahay hartay abgaala tahay xawaadli abgaala isdilaya waxba kama qaban kartid geesina waa tahay geesinimada ciidankii aad xukuntay isku dilayaan ee waxba aad ka qaban aad maxay tahay geesinimadii lagu dheelay culimanimadii lagu dheelo waa cali wajiis professornimadii lagu dheelo waa cali geedi PhD lagu dheelo waa xasan qabri qode
حسن قبري قود حسن قبري قود قوس بادقالي سيو دادقات غادايو غاصو كوي ديبا دجيرانا غايلا أمبا كتيب دين 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 وجماله كله دلكوا فدرال دلكوا فدرال هبر قدير براروغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف كستو هبر قدير واجب يكوتاي إنه شهر قرايو قف كستو قبر هشهر قرايو هدا دوني يسد فنس جمال نركوسو بير مسجل كأنه يقوم على دارتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.